بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي أرسل هذا مقال كنا ما أنت وحكوا سابسين كفل علين أن كفل علين دونا أريا عنصري نبرها بالشدة كجري عفك الصومالية تاسو قاركود سيد الله قرأ خلدنايين هذا هو حنو حرنا محاكا صحة محانا خلدنين أنه هل كان سوي أجنا مقال كان نلا صعد أريجا وجوه الرئي عن ربنا صاغ هذا نوا أريجا أي ما أنت وزارة وحبرشة دولة الصومالية يصير كتير ahaa ardayga galay kaalinta koowaad ee imtixaanka ee la yiraahdo Sakariya hadaba erigaas ayaan soo qabanay wasaaradda markaan baraha bulshada soo dhignay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kaga falceliyay si negative iyo positive ah waxaana xaqiiqada isla eegna marka iska shay looma sheega dadka qaar haya raac bay isaga badan yihiin waxaan ula jeednaa eriga za af Soomaaliga horta ma ku jira ama sama ku jira haddii aan dib u raacno taariikhda afka Soomaaligu eriga zad kuma jira af Soomaaliga waxaana ka tagay guddiga afka Soomaaliga ee dejiyay xarfaha aanu isticmaalay 28 xaraf ka kooban marka laga tagay ajandaheeda ma ahan cilmi darro in looga tagay ama aqoon darro guddiga khayr laasi way dadaaleen ereyga zad way ka tagaan waxaana looga tagay waxa jiray erey lamid ah booskiisa oo af Soomaaliga ku jira xarfo badan laga helay ayaa booskiisa la geliyay oo ah ereyga sa haddaba marka haddii erey Soomaaliya zad ka bilaaban oo soo jirin horta baahi loo keenay ma jirto haddii ay dhacdo erigaasi oo zad ka bilowdo horta ugu erey Soomaali ma ahan waa erey shisheeye meeshu noogu yimidba hadday dhacdo marka oo erey shisheeye noqdo Soomaali laga rabo in laga dhigo wuxuu qaadanayaa xeerka afka Soomaaliga oo ereyga za waxa lagu bedeli doonaa sa waana buugaagta af Soomaaliga ka hadla astaamaha ama xarfaha ay ku qoriyeen wax aniga aska dhahaya ma taa marka waa qodob dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay dib u eegaan ay baaraan waxna af Soomaaliga ku jirayaan lagu soo darin جزاكم الله خير أريك كلام ربنا برارجي وحويان أريك تمام معلش وحن كومنت كديبتي أما نصور بحيث نسوي في تيمي واحد الله يقانا تمام هوس بتاعنا عن ملكو أركي سواء ما كان برها بالشة صادق يعني قد ديبو صحيح هذا بقى سكنا فلقين كسمينا أريك تمام حنا كديدي هل غضبان كديدي أريك في صوماليا تمام وحاول ده حرف كما هذا بقى هو أريك صوماليا متجرة كل ما هذا حرف كما هذا يدعى الله أرك كورا مرك erigaas ugu inuu soo erey Soomaali asal ahayn oo shisheeye ama dool noogu yimid kadibna uu qaatay dhalasho haddii marka dhalasho qaatay erigaas oo la Soomaaliyay maxaa ku dhacaya waxay qaadanayaan xeerka afka Soomaaliga ay qaadanayaan Soomaaliga xeer buu leeyahay marka qaar luqadaha ka fiican eriga marka fiireek tamaam waxa uu dabeeyay ma hadday dhacdo marka erigaas la arko waxaan leenahay booska ma anaga waxaan noogu jirana eriyo badan baan jira dhaqankaas ku rogmay oo dhaqankaas qaatay waxaana la mid ah ereyga hadda aan hayo kan waxa loo yaqaanaa qalam baa loo yaqaanaa asalkiisa waa luqad carabi laakiin marka anaga aanu Soomaaliyeysannay anaga nu soo gaaray qalin baan u bixinay booska ma waxaan ku bedelanaa waxa kale ka mid ah calam waxaa la yaqaanaa sama calamka Soomaaliya hadda lama dhaha waxa la yiraahdaa calanka Soomaaliya haddii dib loo baarna asalkiisa maxaa weeye ereyga calam waa luqad carabi weeyaan aadam ayaa ka mid ah aadam baan anagu dhahnaa marka waxaan ka wadnaa ereyga tamaam hal mid ku saxnaa karaa haddii English waa ila sida qaar ay dadka qaar komentay ku soo qoreen waayo English haduu yahay tamaam ka dhigana hal ka dhigana laakiin yeesa tamaam dhihin haddii tamaam la yiraahdo oo ma loo dabaysiya anaga waa ku dhiganay erigaas waa khaldan yahay cidna uga heebaysamayna cid gaar ma taagayna laakiin waxaan u taaganaa waa qoraalka ama hagaajinta afka Soomaali erey kale waxa weeyaan aan ku dhiganahay umaraan soo qaata sagana waa ereyga ay soo dhigtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ahaa barayaal haddaba ugu barayaal wuu khaldan yahay wuxuu ku khaldan yahay ku cadayn sida xeerka af Soomaaliga uu dhigaya haddii laba shaqal kamid ah haddii ereyga lamaan uu ku dhamaaday midka koowaad ereyga lagu lamaaniyo shaqalka wuxuu isku bedelaa a waa xeer dhigan af Soomaaliga leeyahay waxa kale lamid ah shaqalka o haddii ereyga lamaan ereyga koowaad uu ku dhamaado shaqalka o ereyga lagu lamaaniyo haddaba oodaas waxay isku bedeshaa a buux waa tusaale badan laga heli karaa waxaa ka mid ah kabatole ayaa ka mid samafale ayaa ka mid ereydaas oo dhan waxa waa samo kaba weyn laakiin markii tole iyo safale lagu dar maxaa laga samafale waa a bay isku bedelayaan marka waxaan u taaganahay ama ilaalina waa qoraalka afka Soomaaliga cid gaar ma taagayna weerna kuma nihin laakiin waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee aqoonta u leh inaan kaliya yaqaan ma dad badan baa yaqaan cilmiga ama sharciga xeerka afka Soomaaliga qof kasta oo gacan ka geysiga saxitaanka afka Soomaaliga waxaan leeyahay waajib qarab ma ku saaran inaad saxda cid isugu miisid dadka qaar waxa waa hayra wixii la dhigay iska soo qaataan la taas ma ahan
haddaad taqaano oo adiga aad baratay dadka la mid mid waa inaad dadka kala saxdaa marka jazaakumullahu khayran jazaa cid gaar ah ma beegsanayna laakiin af Soomaaliga cid kasta oo qalda ugu heebaysan mayn hadduu noqdo sirrish waxbarasho hadduu noqdo warbaahin hadduu noqdo waxyaabo gaar anyway mar walba waxaan ilaalinayaa waxa weeyaan wixii aniga aan aqaano aysan bulshada aqoon inaan iftiimiyo waxaan aqaano bulshada taqaano oo la hilmaamay ama laga waa in fardu kifaaya ka ridaan ama anaa sheega waa maastii jazaakumullahu khayran jazaa muuqaalkan xiga insha Allah